السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبينimo wanaagsan akhyaartana daawanaysa meel kastood ka toogtaan daafaha caalamka ku soo dhawaada warxan caaw caalamka idinka haynay youtube-keenan badiya bari channel wararka caawanadii hayno Mareykanka, Yurub, Afrika iyo Asia wararka Soomaalida Afrika ay ku jirto wararkii oo faahfaahsan baan idin dhiibaya shirweynihii 26-aad ee Munich Security Conference ayaa si rasmi ah uga furmay magaalada Munich ee dalka Jarmalka. Shirkan ayaa diiradda lagu saarayaa amniga caalamiga, dagaalka Ukraine iyo caqabadaha siyaasadeed dunida. Dowladda Mareykanka ayaa adkeysay mowqifkeeda ku aadan in aan la qaadan heshiis nabadeed oo degdeg ah, halka khilaafka la xiriira Mareykanka iyo Greenland ay soo baxeen. Dhanka kale, isbeddel cimilada iyo kuleylka oo sii kordhaya ayaa si weyn u saameeyay qaaradda Afrika, iyadoo laga soo sheegayo wadamada qaar abaar ba'an, wadamada qaar laga soo sheegayo daadad iyo fatahaado. Dhanka kale, sidoo kale tartanka Olombikada shiilalka 2026 ee ka socda Talyaaniga ayaa weli soconaya, waxaana jira tartan adag iyo guuleys daba joog ah, iyadoo Canada ay ka mid tahay dalalka sida firfircoon uga qayb qaatay. sidoo kale wararka ka imaanaya Isla Amerika siyaasadda diblomaasiyadda caalamiga ayaa ah ajandaha ugu weyn ee dowladda Mareykanka, gaar ahaan shirka Munich, halkaas oo lagu falanqeynayo arrimaha amniga iyo taageerada military. Dhanka kale, Mareykanka wuxuu sii wadaa diyaarinta diyaarado dagaal oo loo diray bariga dhexe, taasoo la filayo inay saameyn ku yeelato xaaladda amni iyo siyaasadeed ee gobolkaasi. Dhanka kale, wararka ka imaanaya isla Yurub, midowga Yurub ayaa si buuxda uga qayb qaadanaya shirarka amniga Munich iyo dowladaha Yurub ay ka wada hadlaan xoojinta difaaca iskaashiga amniga xilli ay taagan yihiin caqabado siyaasadeed iyo kuwo amni. Isla markaana roobab culus iyo cimilo xumo ayaa ku dhufatay dalal badan oo Yurub ah, taasoo la xidhiidha saameynta isbeddelka cimilada. Sidoo kale, wararka ka imaanaya Afrika, shirweynihii 39 ee midowga Afrika ayaa ka furmay Addis Ababa, waxaana diiradda lagu saarayaa arrimaha amniga, cimilada iyo biyo nadiif ah. Dhalinyaro Afrika ayaa dhalinyaro u jeediyay hoggaanka midowga Afrika. Goobta shirka waxaa ka babanaya calanka Jamhuuriyadda Somaliland, iyadoo halkaa lafteeda lagu falanqeyn doono arrinta Somaliland ee ictiraafka dhawaan ka yeeshay Israa'iil. Sidoo kale, wararka ka imaanaya Soomaaliya, golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta dood ka yeeshay dib u eegis lagu sameynayo cutubka 4 ee dastuurka, kaasoo la xidhiidha nidaamka doorashooyinka iyo xisbiyada siyaasadda. Dhanka kale, shirarka ka socda Soomaaliya oo la isku fahmi laayahay Soomaaliya oo 20 madaxweyne yeelatay, balleer dhageysi cabdisood baa inoo falanqeynaya sida golihii mustaqbalka waxay taagan yihiin filla Soomaaliya ma ku hadleeno sheekadan sheeko weyn waa dhageyso. waxay taagan yihiin golaha mustaqbalka Dani Axmed Madoobe, Sheekh Shariif Saacid Cabdiraxmaan Abshakuur Khayre waxay taagan yihiin filla Soomaaliya ma ku hadleeno. yaa laga warsugaa mataqaanaade waxaa laga warsugayaa ninkii ahaa Xasan Sheekh Maxamuud iyo tiimkiisa, ayakana waxay dhihi doonaan ugu badnaan waxaan ku hadleynaa filla Soomaaliya. sheekada waxay noqon doontaa golihii mustaqbalka oo taagan filla Soomaaliya ma ku hadleeno iyo kuwaan oo dhahayaan filla Soomaaliya ku hadleena. marka Soomaaliya u maqan ilaahay sax, laakiin dadkii Soomaaliya xukumaayay Soomaaliya jabtarsaban ay ku jirtaa wili saasa aaminsanaanay. dadkii Soomaaliya xukumaayay midowga Yurub iyo qaramada midoobe ayaa go'aanka ugu dambeys leh. haddii kuwa la hadlaan way aqbali doonaan, haddii kuwa la hadlaana way aqbali doonaan. caawam hadalkaas meel iga qor, kuwaas soo galaayo waxay dhahayaan nimayaha go'aankaas wada gaara. hadaa go'aankaas aad diidin wax lacag aan bixinayna ma lahan ay dhihi doonaan, hadalkooda waa la yeeli doonaa. haddii Xasan Sheekh Maxamuud iyo odayaashan hadalkooda ay diidaanna waxay sameyn doonaan lacagaha laga jaranaa. Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale haddii go'aanka soo baxo uu diido, wadanka wuxuu yeelan doonaa 2 madaxweyne. Soomaaliya niyo kama warqabtid wadanka hadduu 2 madaxweyne yeeshana xaaladda wadanka waa u jeedaa. war saaxiibeel update-kaas ugu dambeeyay oo ah golihii mustaqbalka caawa uu dhahay filla Soomaaliya dowladda ma kula hadleeno. dhanka kale, wararka ka imaanaya Somaliland, maareeyay wakaaladda biyaha Somaliland ee magaalada Hargeysa Maxamed Cali Daarood ayaa maanta si rasmi ah isu casilay una gudbiyay xukuumadda iscasilaadiisii. xogo aanu helnay ayaa sheegaya in iscasilaadu
ay la xidhiidha khilaafyo shaqo iyo arrimo maamul. Xilka uu baneeyey ayaa si kumeel gaadha loo sii maamuli doonaa iyadoo la sugayo go'aan rasmi ah oo ku saabsan beddelkiisa. Dhanka kale, wasaaradda caafimaadka Somaliland ayaa ka digtay xanuuno la xidhiidha roobaadka gaar ahaan gobollada bariga, iyadoo bulshada loogu baaqay feejignaan iyo nadaafad. Magaalada Hargeysa waxaa maanta ka jira dhaqdhaqaaqyo ganacsi oo caadi ah, inkastoo kor u kac yar laga dareemayo qiimaha raashinka, taasoo ganacsatada ku sameeyeen sicir barar. dhanka kale, abaandulihii labaad ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Somaliland sarreeye guutay Axmed Xasan Faarax oo ay weheliyaan hoggaano ka socda taliska guud ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Somaliland ayaa maanta tababar u soo xidhay saraakiil lagu carbiyey gudaha jamhuuriyadda Somaliland, gaar ahaan kulliyadda saraakiisha ee Cabdilaahi Askar. Saraakiishan qalan jabisay ayaa muddadii tababarku u socday lagu barayay culumta la xidhiidha arrimaha ciidamada, hogaaminta, anshaxa iyo xirfadaha muhiimka u ah saraakiisha ciidanka qaranka. Abaandulaha labaad ee ciidanka qaranka sarreeye guutay Axmed Xasan Faarax oo khudbad u jeediyey saraakiisha qalan jabiyey ayaa kula dardaarmay inay qarankooda ugu shaqeeyaan daacadnimo, hufnaan iyo mas'uuliyad buuxda. Waxa uu xusay in tababaradani ay qayb ka yihiin dadaallada lagu horumarinayo tayada awoodda ciidamada qaranka si ay u gutaan waajibaadkooda qaran ee sugidda amniga iyo difaaca dalka. Halkan ayaan idinku soo gudbinaynaa wararka maanta iyo warar kaloo badan. Daawadayaal, waxaan war idiin haynaa caawa naga intaa. Tan iyo intaan dib u rumayno habeennimo wanaagsan. Laba habeen oon khadka ka maqnayn, cillad farsamo aan uga maqnayn awgeed. Waa idin salaamaynaa. Waxaan uga maqnayn cillad farsamo. Comment, share, like, bye.